iyo qaab dhismeedka jirkeeda oo cajabisay dad fara badan oo ku nool dunida dacaladeeda waxa ay keentay in laga dhex qayliyo. waxaa aniga dhex qariya rag kaliya ma ahan waa rag waa dumar waa hooyooyin waa ilmo de waa la yaabaa adduunkii dhan de marka quruxda soo bandhigay danaga aqaan ku jira de oo xoohayo ka qurux badanahay. qofka aan ka hadlayo waa Samara Steel waa gabadha ugu quruxda badan waqti xaadirkan gabdhaha reer Galmudug ayay la soo daristay xaalad adag oo caafimaad darro kadib markii ay rag iyo dumar badan ka dhex qayliyeen kana heleen quruxdeeda. Samara oo baryahana laga waayay baraha bulshada ayaa iminka lagu quraan saaraya dugsi quraan ku yaala degmada ay ku nooshahay Gurceel waxaana booqanay dugsiga lagu quraan saarayay Samara iyadoo macalinka iyo ardaydiisa ay ku akhrinayaan kalaamka Alle si looga xijaabo isha bini'aadamka. Samara oo nala hadashay quraan saarka kadib waxay noo sheegtay in ay habeenadan hurdo ladin oo laga dhex qaylinayo loona sheegay in rag iyo dumar badan oo quruxdeeda ka helay ayaa ka dhex hadleen iyaduna ay dooratay inay quraan saarto. qof haba yaraatay ka yeelay ma jirto gabar baa ka qurxoon anigana waan soo ogahay inaan qurxoonahay bulshadana way ogtahay ilaahayna wuu ogyahay marka horta maraad isku eego quruxda dadka horta iga sheegaya markaas baa horta rumaystaa de qof inaan qurux badan ahaan de bulshada ay sheegtay hadda tarana ay sheegayo quraasar bay socday maanta ay soo gabagabay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh de waxa adigan ay daawanayaan de maanta wixii ka bilowdo waxna igama qaadi karta il iyo waxaas oo dhan horta waxa igu daran wax kale ma ahan waa marka laamiga aan maray habeenka cashada soo doonanayo de markaas baa horta igu daran de aniga xataa wallahi waan xishooda toobto dadka dhan ay soo eegaya kor aan baan dareema madaxa sakay xanuunay de waka de gabar ka dhex qayliso inta lagu arkay de rag waxa arki jiray gabdhaha ka dhex qayliya laakiin gabar ka dhex qayliso de lagu arkay waa ma dhicin adduunka aan hadda ugu horeeyo adiga ka dhex hadlo dumar de gabdho aan garanayo haan hebla dhigi kala maxad xoo malaga nagu qurxoontahay qaraar baa haayade anu qaraarayaan laakiin waxa laga baa ka qurux badan adduunka dhan baan ka qurux badanahay station dheela wallahi si fiican bay ii soo dhaweeyeen maadaama quruxda soo bandhigtay anigana waxaan kugu dalagalnay quraan inaan ku saarno يعني ayaguna farxad bay iwad anigana farxad bay ii ahayd quraanka anigu waxa isku saar wax kale tabayaratay ma lahan xijaab quraanka xijaab uu yahay quraan laga ma maarmo bataatan ba habayratay quruxdeeda marka soo bandhigana waxaan isku arkay quraanka iyo xoogaha jiro badan aan dareemo maskaxda sakay xanuunto yani qarow badan aan dareemay saas darteed ayaan quraanka isku saaray dadka badan oo iga dhex qayliyada maanta waxa ka yimaado dugsi quraan 3 maalin ayaa quraan soo saarayay isha bilaadanka ayaa quraan saarayay ilaahay mahadi alxamdulillah waanta isoo gabagabay haddana ayaan ka imaaday anigu soomaha wallahi horta qarab badan xitaa anoo habeenkii waan seexawayna maskaxda guguux de waxaas dhan waxay igu bilaaday habeenka aan baraha bulshada ku soo biiray qof walbana geesinimada iyo kartideeda markuu arkaysa oo hadlayna iyo quruxdeedana xooha dasaas baan xoohay aan quraas ku saaray wallahi horta mar walba xooha waa kuwa aan aad uga helnay kuwa buuran kuwa iska caata kuwa madmadow laakiin dan iyo kamiliyada waxa soo dhan noloshida hore ka sii wataa wixigeeda qof indhaweyn de sandheer de ilaahay waxa uu joogi jamaacada de ma isdhameystirka ana istilmaami karin quruxdeeda ana isku naxsanba naag buurana inay iga qurxoonta ma aaminsanaba waka naag buuran model ma noqon karto maya ma loogu tala galin ma dhaxdan yartay quruxda bay ilaa kartaa naag buuran لا يا امين يا امين يا امين يا امين